kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada xog cusub oo laga helay qaabkii loo dilay Ismaaciil Haniye hogaankii dhinaca siyaasadda ee ururka Xamaas iyo baaris uu sameeyay wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee lagu magacaabo The New York Times. Wargeyska The New York Times ayaa sii daayay warbixin baaritaan oo la xiriirta qaabkii uu dhacay dilkii Ismaaciil Haniye oo ahaa madaxii arrimaha dibadda iyo hogaanka siyaasadda ee Falastiiniyiinta. inkasta oo xogo kala duwan ay weli jiraan haddana 7 sarkaal oo dhinaca sirdoonka oo laba kamid ah ay u dhasheen dalka Iran mid kamidna uu Mareykan yahay 5 kalena ay yihiin sirdoonka bariga dhexe ayaa waxa ay xaqiijiyeen Ismaaciil Haniye uu ku dhintay gantaal ay hagaysay aalad oo lagu diyaariyay qolka uu deganaa muddo 2 bilood ka hor ah xilliga dhimashadiisa kaas oo si xirfadeysan loo diyaariyay sida wargeysku uu sheegay. labadii habeenimo ayaa qarax waxa uu ka dhacay qolkiisa waxaana dhismaha uu deganaa lagu magacaabayay Nashaad waa xarun si adag amnigeeda loo sugo. sida la xaqiijiyay qolalka ku dhow qolka uu Ismaaciil Haniye uu deganaa waxa iyaguna deganaa madax sare oo ka tirsan Islamic Jihad oo iyagana ah mid kamid ah ururada iska caabinta Falastiiniyiinta. waxa kale oo isaguna qolka ku deganaa ku-xigeenka Ismaaciil Haniye oo lagu magacaabo Khaliil al-Haya oo isagana aan waxba gaarin. sidoo kale isla dhismaha waxaa deganaa saraakiil sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iran oo ah xubno sare oo inta badan goobtan amni ahaan soo biday iyaga oo aan wax badanay iyagana waxba ma gaarin maadaama aagan uu ahaa aag amnigiisa aad loo adkeeyay. wargeyska The New York Times ayaa baaris uu sameeyay waxa uu ku sifeeyay dhismahan mid la geeyo dadka martida ah ee ah inta badan madaxda sare ayna tahay halka go'aanada ugu dambeeya xasaasiga ay ku qaataan saraakiisha dhinaca sirdoonka iyo madaxda Iran oo ay ahayd goob amnigeedu adag yahay aana lala soo gali karin dhammaan agabyada dhinaca elektarooniga ah. xilligii qaraxa la maqlay ee goobta uu qaraxu ka dhacay isla koox caafimaad oo ilaalada kacaanka Iran ka tirsan ayaa goobta ku diyaarsanaa oo qolka tagay waxayna isku dayeen in ay badbaadiyaan Ismaaciil Haniye balse markiiba waa uu dhintay. askariga la dhintay ayaa la isku dayay in la daaweeyo mase suuro gelin. xilligaasi ayay saraakiisha Iran bilaabeen in ay dhismaha ay ka daadgureeyaan xubnihii kale inta aan beegsi kale dhicin. ciddii ugu horeysay ee warkan culus iyo xogta weerarka lala wadaagay waxa ay noqotay Generaal Ismaaciil Gani oo ah madaxa ugu sareeya ilaalada kacaanka oo isla xulafada Iran ama kooxaha ay taageertay ee kala jooga Lubnaan iyo Falastiin iyo waliba Yemen markiiba gaarsiiyay warkan inuu dhintay Ismaaciil Haniye. Ayatollah Khomeini ayaa isagana hurdada laga jafay saqdi dhexe markaasi oo loo sheegay dhacdadan weyn iyo waliba dhimashada Ismaaciil Haniye oo saacad ka hor ay isugu dambeysay. 4 aroornimo wixii ka dambeeyay Falastiiniyiinta ayaa warka dhimashada u gudbiyay warbaahinta 4 saacadood kadib dhimashadii Ismaaciil Haniye oo ku aadanay 7 aroornimo ayay Iran si toos ah u shaacisay dhimashada waxaana soo dhamaaday wadahadal degdeg ah oo loogu yeeray golaha amniga qaranka ee Iran. sida la wada ogyahay Ismaaciil Haniye liiska dadka loogu doondoonista badan yahay ayuu horeyba ugu jiray oo fursad ayaa lagu gaadayay hase ahaatee ma fududayn in qadar lagu qaarajiyo. Israa'iilna kuma dhiiran karin in ay ku disho sabab la xiriira dhinaca saameynta Dooxa oo aan sahlahayn. sidaas oo kale Turkigu ma sahlanayn in isagana lagu dilo meelo kalena uma uusan baxaynin. Haniye ayaa u baxay caleemasaarka madaxweynaha Iran taas oo ka dhigtay Israa'iilna ay uga faa'iideysatay in ay halkaasi si gaadma ah ay ugu qaarijiyaan. wixii warar ka soo kordha arrintan kala soco Rasmi Radio.